waxaan ka hadlaynaa hadda waxa la yiraahdo faariqu sinni da'da si guud ah uga hadlaaya hadda da'da ma aragtay wax badan oo la isku haysto way gabdhihii ma aragtay dad nimanka odayaal bay guursadeen iyo odayaashii gabdheer bay guursadeen iyo waxaas laakiin waxa la yiraahdaa asalka marka laga hadlayo guurka waa takaamul xaajaad baahiyaal dhameystirooya baahiyaal dhameystirooya macnaheedu waxa waaye gabadhan waxa laga yaabaa wiilkan dhalinyarada ah inaysan ma ninkan inay ka heshay baahi ayada ka maqneedo midalan ama inay xoolo ku raacdo hanti ay ka maqneed ama qof ma aragta booska aabaheed u istaago aaba ma soo kornin ama ma soo helin qof ma aragta u dhimiriyo booska aabaheed u istaagay rabtaa inuu qofkan u noqdo yani guurka asalka waxa la yiraahdaa takaamul xaajaad waa in dadka labada qofood baahiyahooda ay isdhameystirayaan inta badan laakiin jiilba jiilkiisa waa isdhameystiraa Sooma dadka dhalinyarada ah baahidiisa waxa inta badan dhameystiri kara qof kale oo dhalinyaro ah laakiin xaalad konse oo ma aragtay exceptions ah oo laga soo reebanayo way jiraan saadarteed da'da marka laga hadlaayo waxay leeyihiin dadka waxay ku leeyihiin labada qofood inta da'da u dhaxaysa meeqay noqon kartaa ma aragtay meeqa la kara way u dhaxayn kartaa baaritaanay sameeyay waxbay soo ogaadeen waxay dhaheen uu yaraa inay u dhaxayso ragga iyo haweenku wiilku inuu weeyahay 3 sano ama inuu 2 sano ka weeyahay inuu 5 sano ka weeyahay laakiin hadii farqiga u dhaxay labadooda ay 5 sano ka badnaato ama 10 sano hadii ka badnaato taas macnaheedu waxa waaye laba kooxood ay ku kala jiraan ninka muxuu ku jiraa teamka odayaalka gabadhaan maxay ku jirtaa teamka dhalinyarada laba group waa lagu kala jiraa marka waxa laga yaabaa insijaamka iyo isfahamka labadaas qofood ka dhaxeeya inuu cuslaado inuu adkaado waa sababta nabi maxamed uu yiri halla bikran tulaacibuha wa tulaacibuka nabi wuxuu yiri gabar yar la ciyaarto adina kula ciyaarta ma guursatid yani islaanta weyn maxaa u guursatay jaabir uu sheego wuxuu yiri waxaan u guursaday gabdho kale badan ay la jooga marka inay booska hooyada u istaagtaan rabaa markaas oo kale maxaa meeshii ku jirta jaabir baahi baa ka baqan baahidiisa maxaa la rabaa in loo buuxiyo baahida jaabir ka maqan marka maxaa waaye waxa ilmaha la koriyo rabaa saas oo kale waxa la yiraahdaa marka da'da waa saas laakiin nabigeena kaleey salaatu wasalaam qofku da'ahna uu soo guursaday qof ka yarna uu soo guursaday qof ka weynna uu soo guursaday saddexda yani qayboodba uu soo maray sallallahu alayhi wasallam saddexda maxaa la yiraahdaa kow az-zawjatu al-um az-zawjatu as-sadiqa iyo az-zawjatu al-ibna zawjad booska hooyada ku taagan macnaheedu waxa waaye qof ka weyn ama zawj booska aabaha ku taagan macnaheedu waxa waaye qof ka weyn az-zawjatu as-sadiqa maxaa waaye gabar kula saaxiib ah ama wiil kula saaxiib ah macnaheedu maxaa waaye qof isku daatihiin az-zawjatu al-ibna ama az-zawju al-ibn maxaa waaye ninka daayar ama gabar ma aragta ninka ka yar nabiga marka zawjatu al-um yaa u taagnaa qadiija u taagneed qadiija nabiga maxay u buuxinaysaa marka ogaada nin yar oo hooyadii aabii mar hore dhinteen oo wax fiican ah haysanin oo wuxuu ahaa ma aragta adeerkiis kala nool 25 sano markuu gaaro guur bay u bandhigtay is guursadeen qadiija marka baaski waxay u buuxisay xanaankii naxariistii hadalkii wanaagsana kaalmeyntii dhaqaalaheedii bay u buuxisay maxay taagan tahay marka az-zawjatu al-um baaski hooyaday taagan tahay nabiga qadiija baaskaas u buuxisay uu ku soo meel maray waxiga markuu ku soo dagaayay xaaladdu soo maray ilaahay baa ogaa إلهنا سبحانه وتعالى قديجه ودياريه سوى قصة بحسنا الله يابي لها معنا يعني أسوى عبسنا والولاي أيو يمد مركو يمد قديجة حالي كانت واي حالسي عبسيدي سي وحي سي أدو واي حالسي إنه النبي نقرب والقف بيه وقاسي وعلى سوء وقادي مركي هذا النبي لقد ديقان واي رميسي المها هذه دان عيادة أولا شيء هانتي ذي بيسيسي يعني باسكي محي يستاكتي هو يعني ماذا الزوجة الصديقة والزوجة اسكو دعاتين أما كل صاحبة أم سلمة حفصة زينب هوين كان النبي وحالي لا دعها واسكو دواين الزوجة الابن النبي وصامر يا واي عائشة رضي الله عنها في مركة عائشة نبي ومحولة دقماي نحريست يماركت أسوأ كنت نجير إنه قبري ردن يراء والأرض أو يرهدو كالي أن ترتني أرض أن ترتني إنه يرهدو محاواي باهي هذه ودميسترا وأبوحيناي ما أركت مدين أنا ما نين أضيع هاي ما أرتي كره ماشى سافري سنة إيه ما أورن وهذا اللون وناكسن ويراي ما أنتوا جورسنا محل هذا
koobkii caanaha loogu keenay Caaisha hal ugu bilaabo uu yiri kadibna afkeeda meesha iyada ka cabtay afkeeda ee soo saartay uu nabigu ka cabay romantic ma u dhiman alayhi salaatu wassalaam يعني معناه وبوحنا مركو وعي محودي جري يا حميرات تي يرى عسيدة جودنيدي ودي جري مركو وعي محودي جري يا عاشيري قرب كيساسي سو استاي جرت عياري فيرسن جرت هل كاسي تاينت انت مدح هذا كسو تاي عياري فيرسنه يعني ما حاواي قورير وحي uga baahneed oo dhan nabiga kaleey salaam waa u buuxiyay xaajaadkiisa waa u buuxiyay saadarteed kaleey salaam waa dhameystirnaa ilaahay baa dhameystir subhanahu wa ta'ala marka daada marka laga hadlayo waxaan dhahnay koob maxaa la fiirinayaa xaajaadka baahida qofkan ku qasbaysa maxaa waa ma jirto daa la dhaha intaas haday ka weyn tahay isku guursan ha u dhawaan dhalinyaradu ma aragtay waxaan lama dhowran karo iyo waxay sheegayaan ma aragtay waxa qofkan iyo danihiisa iyo baahidiisa wax u gooniyo